In ka badan 100 magaalo oo ka tirsan gobolada 11 ah ee dalka Iiraan ayay si xooggan ugu baaheen dibadbaxyada maalintii 12aad ka socda Jamhuuriyadda Islaamiga ah ee Iiraan. Tiro gaarta 40 qof ayaa ilaa hadda la wariyay inay ku nafwaayeen dibadbaxyadan ka curtay sicir bararka daran ee adkeeyay noloshii dalkan, iyadoo sidoo kale xoguhu jabinayaan in la xiray kumanaan mudaharadayaasha kamid ah oo gacan qaad kala hortagay laamaha amniga ee xakamaynta rabshadaha dibadbaxyadan. Tan waxaa loogu yeeray tijaabadii ugu adkayd ee hoggaanka Iiraan wajahayo 10kii sano ee ugu dambeeyay. Xaaladda oo ay uga sii darayso faragelinta banaanka ah, sirdoonada shisheeye ee ku dhex milan mudaharadayaasha doonaya dhicidda xukuumadda Tehran iyo duruufaha adag ee rayidka dalkani ka wajahayaan nolosha cakiran ayaa sababi kara kororka iyo sii socoshada nasasho la'aanta Iiraan oo la oodorosayo inay wajiyo kale oo aan tashiga ku jirin yeelan karto. Wararkii ugu dambeeyay ee dalkan ka imanaya ayaa sheegaya in dawladdu jartay internetkii iyo isgaarsiintii telefoonada si loo xakameeyo xaaladda farokabaxa joogta ee mudaharadayaasha oo lagu waramayo in badan oo kamid ah ay ku dhawaaqayaan dhicidda hoggaanka wadaadada iyo dhimashada Khamenei. Weeraha dibadbaxayaashu ku dhawaaqayaan lafahaantooda ayaa tusaya kaalinta togan ee farogelinta galbeedku ku leedahay horinta xaaladdan, iyadoo doonistu tahay inay tani noqoto mawjadii ugu dambeysay ee karkaarka kala degta xukunka wadaadada. waxaaba lagu waramay in mid ahaan isu soo baxyadii ugu rabshadaha badnaa ee dalkan ka dhacay fiidnimadii Khamiistii shalay uu ku baaqay dhicistiisa Reza Pahlavi, dhaxal sugihii boqortooyadii Pahlavi dynasty, wiilka Maxamed Pahlavi oo ahaa boqorkii ugu dambeeyay ee Iiraan ee ay wadaadadu xukunka ka eriyeen 1980-meeyadii. Pahlavi oo haatan Mareykanka ku nool ayaa dibadbaxyada socda ugu yeeray gulufkii ugu dambeeyay ee talada lagu weydaarin lahaa. waxa uu ugu yeeray keligii taliska Iiraan. Donald Trump, madaxweynaha Mareykanka, ayaa isaguna docdiisa taageero aan gabasho lahayn u muujiyay dibadbaxyada Iiraan. waxa uu sheegay in haddii dawladda dalkaasi dibadbaxayaasha dil kala hortagto ay iyana diyaar u yihiin duulaan ka dhana Iiraan. The crowds are just they're massive. The enthusiasm to overturn that regime is incredible. Isu soo baxyadu aad ayay u tiro badan yihiin. doonistooda xukunka tuurista taliskuna waa mid iska cad. dad badan ayaa hadda talisku dilay. haddii ay taas sii wadaanna waxaanu diyaar u nahay inaanu dagaal kaga jawaabno midaas. hadda ayaan ku celinayaa, haddii ay dilaan dibadbaxayaasha ciqaab adag ayay middaa ka dhaxli doonaan. telefishinka dawladda Iiraan ayaa docdiisa sheegay in dhaawacyada iyo dhimashadu ka dhalatay isbuurashada iyo rabshadaha dibadbaxayaasha aysan jirin toogasho ulakac ah oo laamaha dawladdu kala hortageen mudaharadayaasha. waxaa dawladda waddankaasi ka digtay rabshadaha dibadbaxayaasha oo gaaray heer dab la qabadsiiyo dhismayaasha, gaadiidka dawladda la burburiyo, gacan qaadna lagala hortago laamaha amniga, midaas oo xaaladda uga sii daraysa. Iiraan waxa ay taagan tahay iskoys kale oo adag, mid galbeedku u arkaan inuuba waqtigiisii ka soo hormaray. xukuumadda Tehran waxa ay la dhibtoonaysaa xaaladda aan lafteeda la inkiri karin ee dhaqaale xumada iyo abaaraha waddanku wajahayo, halka galbeedka iyo jaalkooda Israa'iilna ay ka faa'iideysanayaan carada rayidka gudaha ee doonaya isbeddelka nololeed, kuwa oo ay qorsheynayaan inay ku jiheeyaan xukunka tuurista hoggaanka waddanka ee mayalka adag. ha yeeshee taas lafahaanteedu ma aha mid si dhaqso leh dhicitaankeeda looga rajo dhowri karo.